Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Lektion 38 casharkeena 38aad waxaanu ku baran doonaa casharkan waxa loo yaqaano personal pronomen im accusative magac u yaalada xaaladda accusative-ka. Haddaba maxay yihiin personal pronomenka amba magac u yaaladu? Haddii aadan weli arkin amba aadan daawan, dib u daawo casharkeenii ka hadlayay magac u yaalada. Inta aynaan bilaabin personal pronomen im accusative-ka, aynu eegno goorta iyo waqtiga la isticmaalayo. Tusaalaha u horeeya, das ist Mohammed. Kani waa Mohammed. Mohammed wohnt in Hamburg. Mohammed wuxuu ku nool yahay Hamburg. Haddaba halkii aad ku soo celin lahayd Mohammed mar kale ee aad odhan lahayd Mohammed wohnt in Hamburg, waxaad isticmaalaysaa er oo ah er wohnt in Hamburg. Isagu wuxuu ku nool yahay Hamburg. Personal pronomenku wuxuu ka ilaalinayaa jumladda in uu ku soo noqnoqdo magacu. Markaad isla Mohammed ka sii hadlayso waxaad odhan kartaa ich finde Mohammed nett. Waxaan u arkaa Mohammed qof fiican. Haddaba haddii aad doonaysid in aanu Mohammed ku soo noqonin mar kale halkan, waxaad odhanaysaa ich finde ihn nett. Waxaan u arkaa isaga qof fiican. Haddaba ihn waa personal pronomen im accusative-ka er. Ich finde ihn nett. Ich waa markasta subjectigeena oo ah nominative, halka ihn na ay u taagan tahay ama ay tahay accusative. Haddaba intan waxay u taagan tahay isaga oo ah Mohammed oo aynu halka hore ku soo aragnay. Haddaba aynu baranno accusative personal pronomenku waxay yihiin. Haddaba aynu ka bilowno qofka koowaad oo ah markasta qofka hadlaya. Singular. Nominative markuu yahay waa ich oo ah aniga. Markuu accusative yahayna waa mich oo isla macnaheeduna uu yahay aniga. Ich bin Asha. Anigu waxaan ahay Asha. Kennst du mich? Miyaad i garanaysaa? Aniga. Waad aragtaan sida aan u wada isticmaalnay ich iyo mich labadaba. Personal pronomenka caadiga waa ich, marka uu accusative ahaana wuxuu qaataa mich. Haddaba aynu eegnaysna qofka labaad oo isna ah isla singular. Du. Nominative. Accusative-na wuxuu noqonayaa oo uu qaataa dich, isla adiga Haddaba aynu gelino tusaale. Wer bist du? Aan ku celiya mar kale. Wer bist du? Yaa tahay adigu? Ich kenne dich nicht. Aan ku celiya mar kale. Ich kenne dich nicht. Kuma aqaana adiga. Waad aragtaan sida aynu u wada isticmaalnay du iyo dishba. Aynu isna eegno qofka saddexaad oo ah isla masculine oo isla singular ah er. Nominative. Isaga. Accusative-na wuxuu qaadanayaa oo uu noqonayaa ihn. Isaga. Aynu isagana gelina tusaale. Das ist Mohammed. Er ist Polizist. Aan ku celiya mar kale. Das ist Mohammed. Er ist Polizist. Kani waa Mohammed. Isagu waa askari. Ich kenne ihn. Waan aqaanaa isaga. Waad arkaysaan sida aan u wada isticmaalnay er iyo ihn sida isku aynu eegno personal pronomenka xiga ee kale. Qofka saddexaad oo feminine ah. Nominative wuxuu noqonayaa she.
accusative-na wuxuu noqonayaa uun sie isma bedelayo. Sie macnaheeduna waa marka aynu ka hadlayno wixii dhadig ah iyada. Haddaba aynu gelino tusaale. Das ist Asha. Sie ist Mutter. Aan ku celiyo mar kale. Sie ist Asha. Sie ist Mutter. Tani waa Asha. Iyadu waa hooyo. Ich finde sie sehr nett. Iyada waxaan u arkaa qof fiican. Waad aragtaan sida aan u isticmaalnay sie. Ka xiga qofka saddexaad oo isla ah un Neutrum. Marka aynu ka hadlayno nominative s, isla accusative-kuna wuxuu ahaanayaa un s. Aynu gelino tusaale. Das ist mein Buch. Aan ku celiyo mar kale. Das ist mein Buch. Es ist neu. Kani waa buugaygii wuu cusub yahay. Ich finde es sehr interessant. Waxaan u arkaa buug fiican. Haddaba aynu eegno qofka koowaad oo plural amba jamac ah. Nominative waa wir. Accusative-na wuxuu noqonayaa uns oo macnahoodu yahay innaga, oo aynu kaga hadli karno oo aynu ama isticmaali karno marka aynu ka hadlino laba qof iyo wixii ka badanba. Haddaba aynu gelino tusaale. Wir sind Mohammed und Asha. Celiya mar kale. Wir sind Mohammed und Asha. Waxaan nahay Mohammed iyo Asha. Kennst du uns? Kennst du uns? Miyaadna garanaysaan? Haddaba waad arkaysaan wir waxaa loo isticmaalayaa laba qof iyo wixii ka badanba. Waadna aragtaan sidaan u isticmaalnay. Aynu eegno ta xigta qofka labaad oo isna ah un plural amba jamac. Waa ihr. Nominative. Accusative-na wuxuu noqonayaa euch. Idinka. oo marka aynu ka hadlayno iyagana wax badan. Haddaba aynu gelino tusaale. Seid ihr. Aan ku celiyo mar kale. Seid ihr. Yaa tihiin idinku. Ich kenne euch nicht. Aan ku celiyo mar kale. Ich kenne euch nicht. Idinma garanayo anigu. Waad aragtaan sida aan u isticmaalnay ihr iyo euch. Ihr waxaad wax ku weydiin kartaa badanaa marka aad ka hadlaysid qolo kale. Idinka. Sidee tihiin idinku? Ma wanaagsan tihiin idinku? Euchna waa sidaas oo kale. Waa accusative-ka. Ihr ayaa ah iyaduna euch oo macnaheedu yahay un idinka. Aynu eegno personal pronoun-ka kale ee xiga. Waa qofka saddexaad un oo isna jamac ah. Nominative wuxuu noqonayaa sie. Accusative-na wuxuu ahaanayaa un sie. Macnaheeduna yahay iyaga. Iyaga. Das sind Abdi und Fatuma. Kuwani waa Cabdi iyo Fatuma. Ich kenne sie. Ich kenne sie. Waan garanayaa iyaga. Fadlan isku day sie waxaa jirta feminine oo dhadig ah, oo marka laga hadlayo wixii dhadig ah ee gabadh ah waxaa jirta sie kale oo iyaduna ah ixtiraam. Waxaa jirta sie kale oo iyaduna ah iyaga. Isku day fadlan inaad mid kasta sideeda u baratid. Haddaba waxaynu eegaynaa qofka labaad oo isna ah ixtiraam. Qofka labaad wuxuu ahaa du oo ah isaga. Tanna waa isla du oo ah un ixtiraam ahaan markaad qofka u weydiinaysid. Sie adiga. Sie accusative-na adiga unbay ahaanaysaa. Haddaba aynu gelino tusaale. Herr Schmidt. Wo sind Sie? Aan ku celiyo mar kale. Herr Schmidt. Wo sind Sie? Ku aaway mudane Schmidt. Ich suche Sie. Adaan ku raadinayaa. Ich suche Sie. Adiga ayaan ku raadinayaa.
waxaad isticmaali kartaa siidan mar kasta oo aad qofka u ixtiraamaysid oo ah qofka labaad. Do oo ixtiraam ah un weeyaan. Markaa saas ayaad u isticmaali kartaan, waadna aragtaan sidaan u isticmaalnay imika. Haddaba aynu halkan iskugu soo koobno wixii aan soo baranaynay oo dhan. Nominative-ku markuu yahay ish, aniga, accusative-kuna wuxuu noqonayaa mish oo aniga un ah. Do markuu nominative-ku yahay, accusative-kuna dish. Nominative-ku markuu aya yahay, accusative-kuna in. Nominative-ku markuu c yahay, accusative-kuna c unbuu ahaanayaa. Nominative-ku markuu s yahay, accusative-kuna wuxuu ahaanayaa un s. Nominative-ku markuu yahay fear, innaga, accusative-kuna wuxuu ahaanayaa uns oo ah un innaga. Iya markuu yahay nominative-ku oish ayuu accusative-na noqonayaa. C markuu yahay nominative-ku iyaga, c ayuu accusative-kana ahaanayaa. Iyo ta ugu dambayso oo ah nominative c-da ixtiraamka ah, accusative-kana wuxuu ahaanayaa un c-da ixtiraamka ah. Waan hubaa in aad kolley su'aalo badan oo cashirka ku saabsan haysaan. Haddii aad su'aal haysid ama wax kugu adag jiraan, waad igu soo weydiin kartaa commenti ahaan, aniga ayaana kaaga soo jawaabi doonaa. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i dhegaysatay ee aad i daawatay. Waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan cashirka ka wada fahanteen. Haddii aad cashirka ka heshay, fadlan share garee oo la wadaaga asxaabtaada kale ee iyaguna jecel in ay bartaan luqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.